magaalada muqdisho caasimada dalka waxaa xalay kulan qorsoodi ah oo bahda warfidiyeenku aysan ogeyn ku yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan madaxweynihii dawladii ku meel gaarka ahayd ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulamadan ayaa intooda badan bahda warfidiyeenka loo diiday inay wax badan ku ogaadaan waxaase jirta warar soo baxay oo sheegaya in kulamada intooda badan diiradda lagu saaray la dagaalanka al-shabaab arrimaha doorashooyinka khudbadii farmaajo oo dhawaan ka jeediyay baarlamaanka iyo sidoo kale inta badan oo kulanka lagu falanqeeyay arrimaha doorashooyinka iyo sida ay noqon doonto doorasho ka dhici karta Soomaaliya warar helin ayaa waxay sheegayaan in kulanka intuu uu socday madaxweyne farmaajo uu soo wacay gudoomiyaha golaha shacabka dabadeetana uu weydiiyay kulanka iyo cidda ku helisa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa wararku waxay tilmaamayaan in uu sheegay in kulanka ay ku heliyaan Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna farmaajo codsaday in uu la hadlo Shariif Sheekh Axmed kulan qadka ah ayaa dhexmaray waxaase jirta in inta badan looga hadlay kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo waxa laga yeelayo doorashada soo socota warar kale helnay waxay tilmaamayaan in maalmaha soo aadan ay kulan yeelan doonaan Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana kulamada looga hadli doonaa arrimaha doorashooyinka iyo nooca ay noqon doonto doorasho ka dhacda Soomaaliya kulamada ayaa la ogeyn waxay ku soo ilaadeen iyo hadiiba ay jiraan is afgarad dhexmaray gudoomiyaha golaha shacabka